haddaan ka dhigto fakarkayga xukuumaddan cusub ee maaragtay lasoo dhisay waxaan u aragsanahay in aysan ka heli karin baarlamaanka kalsooni kana gadmi karin bulshada sababtoo ah shalayka mooshinkii macnaha la fiday xukuumaddii ku dhacday yaa waxaa ku jirta wasiiradii maaragtay keenay in maaragtay la burburiyo xukuumaddii hore sidaa awgeed anigu ma arki kara inay yihiin kuwa ka gadmi kara shacabka magacayga waxaa la yidhahdaa asiiri waxaan u arkaa inaysan waxba ka bedeli karin arrimihii hore inaysan waxba ka bedeli karinin baan u arkaa oo aysan wax hadda natiijada ay kusoo kordhinayaan aysan jirin magacayga cabdishukur cabdullaahi baa la yidhaha waxay la tahay xukuumaddaana hadda lagu dhawaaqay xukuumad shaqaynaysa inaysan ahayn waxaana leenahay baarlamaanku iyo ansixin arrintaa ha ka hor yimaado sida la doono ra-iisul wasaaruhu sama xulanay waxaa lagu dhisayaa waxaa la rabaa ninka mas-uulka inuu hawshiisa u madax bannaan yahay oo madax bannaansho uu isagu xuli karo oo dhisi karo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa siciid maxamed sheekh casmaan jooga gobolka mudug magaalada gaalkacyo puntland soomaaliya fikirkayga haddaan ka dhiibto xukuumadda cumar cabdishiir cali sharmaake uu dhisay uu soo dhisay see u aragtaa hadday tahay xukuumaddan oo ra-iisul wasaare cumar cabdishiir uu soo dhisay waxaan u arkaa xukuumad aan xorriyad loo siin inuu xorriyad ku dhiso maxaa yeelay xukuumaddii hore oo dhacday oo axmed cabdulla sheekh axmed raggii mooshinka keenay oo riday baa qayb ka ah waxaan oran lahaa marka baarlamaanku wuxuu u dhisan yahay dowladda dhexe federaalka codka shacabka ku dhisan yahay in shacabka waxay rabaan ay raacaan xukuumaddan waa xukuumaddii keentay in baarlamaanku uu kala qaybsamo in baarlamaanku isqabqabsada abuurtay wey waxaan oran lahayn maadaama shacabka oo soomaaliyeed ay wakiil ka yihiin inaysan ansixin oo ay tahay dowladdan dowlad fashila waana ka baxay